shir saxaafadeedka bilaha ah ee wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo uu ku qabtay xafiiskiisa waxa uu ku faahfaahiyay guulaha Soomaaliya ay ka gaartay hagaajinta maamulka maaliyadda oo ku xiran nidaamka deymaha looga cafinayo Soomaaliya. waxa uu sheegay wasiirku in shuruudihii ugu muhiimsanaa deen cafinta ay ka gudubtay Soomaaliya ka hor waqtigii loogu talagalay sida ay qireen madaxda hay'adda lacagta adduunka. waxay yiraahdeen arrimihii la idinku talagalay June inay dhamaadaan waa dhamaysteen waa ka soo baxdeen waana mahadsantiin bay yiraahdeen waa saddex bilood soo idin arrimihii loogu talagalay September endkeeda oo wali dhamaana ilaa 15keedii 20keedii baan joognay ayagana intoodii badnayd waa dhamaysteen shikirina gagama jiro inta hadda in September 3keeda dhamaynaysan waxa kale oo yiraahdeen oo ka sheegan waraaqaha ka akhrisanaysan internetka press release ka soo saareen arrimihii loogu talagalay December ina dhamaysan intooda badan waa dhamaysteen khayr Allah idin siiyay bay waa dis bedeshay bay yiraahdeen si fiican baad u socotaan bay yiraahdeen ya shikirina gagama jiro dhamaynaysan arrimaha ugu dambeeya ee la idinka rabo March 13keeda qaar badan waa ka gudubteen bay yiraahdeen wasiirka maaliyadda waxa uu tilmaamay in deeq bixiyaasha caalamka oo ay ugu horeeyaan bangiga adduunka iyo midowga Yurub ay Soomaaliya ugu deeqeen 427 milyan oo dollar iyaga oo ka duulaya sida Soomaaliya ay u fulisay shuruudihii ku xirnaa nidaamka deen cafinta. World Bank waxa ka imanaya 140 milyan oo dollar yaa ka imanaya intaas oo dhan ay tahay habka aan isku maamulay maanta waxa la inagu aaminay waxa weeye 100 milyan oo euro inay EU tiraahdo waa deeseynayna of course iyaguna jid kale iyo banay top kale oo leeyihiin aan deeseynay waxa sameeya mala 6 bilood baan ka shaqeynay dhowr iyo 80 kale ayaa jira oo ah mashaariic ayaa jira 40 kale milyan baa jira oo ay African Development soo marinayaan ka isku wada geyso geedi socodka maanta imtixaanadeedii la naga qaaday ee aan soo dhamaynay awaya 427 milyan. wasiir Beyle waxa uu meesha ka saaray in ay deyn tahay lacagaha la siinayo Soomaaliya oo warbaahinta qaar ay daabaceen. waxaan halkan ka sheegayaa khalad baa meel ka dhacay baan u maleynayaa lacagtani deyn ma aha waa deeq weey read my lips waa deeq weey deyn ma qaadan karo. dabagalka lacagaha deymaha caalamku ku leeyahay Soomaaliya ayuu soo hadal qaaday wasiirku waxaana uu sheegay in ay ku ogaatay wasaaradda maaliyadda lacag dhan 1 bilyan oo dollar inaan loo hayn cidii saxiixday iyo sidii ay ku timid. baaska imano waxaan ku leeyahay dawlad baa imano waxaan ku leeyahay mid walba waan register gareynay ilaa anaga waxaan tusnaamay jiro soo wax walba inaan gubnay waxaan aynaa jiro wixii leenagu leeyahay marka imaga waxaan idhi wadageyso hadda wax nagu leedahay waraaqoodii keen ma haysa waraaqoodii aan kula saxaanay saasan ku niri cid walba waraaqan u diro warqad lacag baan ku leenahay baa tiri 1 bilyan waraaqihii dawladda Soomaaliya kula saxatay keen qaar ba keeni waayay oo ka jaray meeshii ka jaray inta keeni waayay waa ka jaray waa ka jaray imaga waxaan u maleynayaa waa la isixi karaa 4 bilyan iyo bar inay tahay markii hore waxay 5 bilyan iyo bar baxay. dawladda federaalka Soomaaliya ayuu sheegay madaxdeedu inay ka go'an tahay hagaajinta maamulka maaliyadda si caalamku u aamino loogana cafiyo deymaha lagu leeyahay iyo kobcinta dhaqaalaha si ay Soomaaliya u gaarto isku filnaan. dariiq fiican baan ku dhacnay tub baan ku dhacnay fiican si fiican imika wararka dhageysa waxa dadku leeyahay waxa adduunku leeyahay dariiq fiican baan ku dhacnay waana ku taagnaanayna arrintan dariiqa ku dhaco ee dhaqaalaha dhis one national priority sidoo madaxweynuhu prime minister kuna yiraahdo all the time one national priority way cid walba mas'uuliyad ba ka saaran. wada hadallada deymaha looga cafinayo Soomaaliya oo maraya heerkii ugu dambeeyay ayaa dhamaanaya marka la gaaro bisha May ee sanadka soo aadan. dawladda federaalka Soomaaliya ayaa u muuqata mid muhiimad gaar ah siisay hagaajinta maamulka maaliyadda oo ku xiran horumar dalkeenu gaaro. Cabdishakuur Ali Axmed warbaahinta qaranka Muqdisho.